وعفاشل يقول دران على لسان أي كل عضي الدكتور كسياسة كقول دراسته إنه يقول كأن وصدق يكوي السنة وترى قرن كسومالي لأن مناسبة قرشية كنا واقسته والسياسات كيسة ومكي مركز الدحادة لما جاب حيبر واقع أي وح أي نقطي مدة كسو حاضري أي بوحين وين هول كإسلام مركنا لا أركيا كلية كوبان أصب حاضري مناسبة يضو أي سيدو كلا إن أكراس تخرف فديان حبنا أبدا حسبك تلا سومالي لأن هي إقليمية kuwaasi oo dadaal ugu jira fuuladeynta shakhsiyaadka doonaya inay furtaan urur siyaasadeed cusub isla markaana hore loogu dhax arkay xaflado hore oo sidan oo kale laga dhawaaqay urur cusub waxaana doctorka wajiga waxa uu kala kulmay hoolka markii uu soo galay isagoo aan jeclaysan tirada dadka farakutiriska ah ee dhex fadhiya hoolka ballaaran ee uu kreestay kuraasta aad arkaysaan waa hoolka hotelka guuleed ee lagu qabtay xafladda dhicisawday ee la doonayay in loogu wanqalo urur siyaasadeedkiisa uu horkacayo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waa dhanka kale xusid mudan in ay xafladani ka meeqaam iyo maamuus sareeyeen xaflado dhigeeda oo ay lahaayeen ururada ay ka mid ahaayeen urur siyaasadeedka uu shaaciyay Cabdirasaaq Ibrahim Atash iyo sidoo kale urur siyaasadeedka kale ee uu ku dhawaaqay Hilaac Professor Axmed Ismaaciil Samatar kuwaasi oo munaasabadahooga ay ka soo qayb galeen kumanaan kun oo qof markaan isbarbar dhigno farqiga bulsheed iyo saameynta xafladaha ururada aan kor ku soo xusnay iyo tani maanta waxa ay muujinayaan in xaalka urur siyaasadeedka barwaaqo ee wanqalkiisa hoolka hotelka guuleed lagu qabtay ay haleeshay isla markaana uu Maxamed Gaboose la kulmay fashil iyo guul darro oo ku qancin kari waayay bulshada uu ka doonayo kalsoonida inay ka soo xaadiraan xafladiisan halka sidoo kale aanay gabi ahaanba xafladani joogin ama soo xaadirin dadkii hal doorka ahaa ama shakhsiyaad badan oo kamid ah bulshada deegaanada uu ka soo jeedo Dr. Gaboose ee uu doonayo inuu ka raadiyo soo bixista ururkiisa hadii la furo ururada siyaasadda dalka Antonio markii Maxamed Gaboose ku dhawaaqay in uu ka qayb yahay dadka doonaya inay furtaan urur siyaasadeed cusub waxa soo baxay aragtida ay dadka reer Soomaaliland ka dhibanayaan doonistiisa cusub maadaama uu hore ugu dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fadhiistay siyaasadda Soomaaliland isla markaana uu u go'ay dhinaca cibaadada iyo samafalka bulshada balse oraahdaasi ayaa noqotay mid waxba kama jiraan oo si cad u dafiray doctorku inuu gabi ahaanba ka baxay siyaasadda Soomaaliland